casharka 11aad ee kitaabka xusnul muslim ducada qofka galgasha habeenkii لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار إله حق لو عابدو مجرو إله واحد كأه خاهر كأه موياني أهنا ربك عررك إيلولك يوحى أدحيا أهنا أتكاد دنب دافد بدن ducada saska hurdada iyo qofka lagu ibtileeyo dadan cabsiyeed hadii hurdada dhexdeeda aad ku aragto qarow ama aad sasto sidaasna aad ku soo baraarugto dheh a'uudhu bikalimati llahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa sharri 'ibadihi wa min hamazati ash-shayatin wa an yahdurun waxaan magangelayaa erayada alle ee dhameyska tiran caradiisa iyo ciqaabtiisa iyo sharka addoomihiisa ayaan ka magangelayaa sidoo kale waswaaska shayaatiinta iyo inay isoo xaadiraan ama ii yimaadaan ayaan ka magangelayaa waxa uu yeelayo ama uu samaynayo hadduu arko qof riyo xun ama qarow hadduu qofku arko riyo xun ama qarow waxaa looga baahan yahay inuu sameeyo shantan waxyaabood ينفث عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى 3 مرات ولا يحدث بها أحدا ويتحول عن جنبه الذي كان عليه ويقوم يصلي إن أراد ذلك كو وحو أطفيا 3 جر دنيعيس بدح لبو شيطانك أيو إسكناريا 3 جر 3 قفنا أو مشاكينا يريديس 4 وحو أسيحانيا دنيعي وأجيفي مويا دنيعا كلا 5 hadduu doono ha istaago oo ha tukado midan shanaad qiyaad ayuu u leeyahay qofka ducada qunuudka ee witriga اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت الله يهنوني أما إغسك هنونك كوات هنون سيد إحداد إعافي أو إغرب عذرادا أخلاقدا هوينك حنحن كوات عافسي أم أتكبر يا شيد إحداد إغانا ولي نقو يعني مامو الأريمة هيغا أو إغو دين نفتيدا كوات وليك نقطي أما أت مامو شيد إحداد إينا بركي وحاات إسيسي إغانا إلالي وحاد إي قدرتا شركيسا أذيغو الله وات قدرتا أما حكمتا لو من حكومه مدلو وقفكات وليك يالتو منعسو أما ليبانو قفكات لعلوذو اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الله waxaan uga magangelayaa caradaada raalinimadaada ciqaabkaadana cafiskaaga ayaan uga magangelayaa adaana ku magangelayaa mana koobi karo amaantaada adigu waxaa tahay Allah sida aad isku amaantay اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك الله adigaan ku caabudaynaa adigaana ku tukanaynaa kuuna sujuudaynaa xagaagaan u soo cararaynaa una soo degdegaynaa waxaan rajaynaynaa naxariistaada waxaana ka cabsanaynaa cadaabkaaga aad cadaabayso gaalada waa mid haleelaya Allah kaalmo ayaan ka dalbaynaa dambi dhaafna waan ku weydiisanaynaa khayrna waan kugu amaanaynaa kuuna gaaloobi mayno waana kurmaynaynaa waana isku kaadulaynaa waana ka tagaynaa ama nacaynaa qofkii kugu gaalooba ducada ka salaam naqsashada salaada witriga kadib yaani marka laga baxo salaada witriga subhanal malikul quddus waxa xumaan ka hufan ilaahayga boqorka ah ee ka nasahan cayb iyo xumaan 3 mar ayuu dhahayaa marka saddexaad kor ayuu u qaadayaa isagoo dhahaya rabbil malaa'ikati war ruuh rabbigi malaa'ikta iyo malakul jibriilba
ducada walwalka iyo walbahaarka. ducadan waa duco aad u weyn, dadka intooda badanna aan ku baraarugsanayn. dhallinyarada badankood waxay ka sheeganayaan walwal fara badan. subxaan allah, wuxuu ku leeyahay maalmahan isma fahansani, anigoo dhan si kale ayaan ahay, waxa i haaya ma aqaan. ugu horayn waxaan kugula talin lahaa 5 salaadood ee waajibka ah inaadan marnaba ka caajisin, waayo walwalka waxa ugu horeeya ee keena waa salaad la'aanta. sidoo kale haddii aad dareento walwal iyo walbahaar, akhriso oo joogtee ducadan. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. allow anigu waxaan ahay addoonkaaga iyo wiilkii addoonkaaga iyo wiilkii addoontaada. foodeyda ama hogaankayga wuxuu ku sugan yahay gacantaada. xukunkaagu wuu igu fulaa qadahaagu, ama waxaad ii qadarto waa cadaalad dhexdayda. waxaan kugu weydiisanayaa magac kasta ood leedahay adigu, kaasood u bixisay naftaada, amase aad ku soo dejisay kitaabkaaga dhexdiisa, amase aad bartay qof ka mid ah uunkaaga, amase aad ku gaareeshay agtaada cilmilaqaybka dhexdiisa, inaad ka yeesho qur'aanka weyn qaboojiyaha qalbigayga iyo nuurka laabtayda iyo faydaha walbahaarkayga iyo tagsiyaha murugadayda ama walwalkayga. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. allow waxaan kaa magangelayaa walwal, walbahaar, caajisnimo iyo culays. waxaan kaloo kaa magangelayaa baqaylnimo iyo fulaynimo iyo kulug lahaansho deyn iyo raynta ragga, yacni in deen fara badan laygu yeesho iyo guuldaro dhan walba ha ahaatee. la soco casharka xiga insha allah.